Assalaamu calaykum. Soo dhawow. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay creativity ama hal abuur. Inaad hal abuur leedahay waxaa ku ogaan kartaa inaad samayso ama aad curiso fikrad aan horay lagaaga horeynin. Weligaa ma istiri haddii aan la imaan lahaa fikrad cusub wax walba waa lagaga horeeyay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego waan kugu raacsanahay. Waqtigan la joogo wax walba waa lagaaga horeeyay. Sug hayga tagin maadaama arrintu ay saas tahay sidee kula imaan kartaa wax asal ah. Haddaba aan soo qaadano buuggan lagu magacaabo Still Like an Artist. U xad sida fanaanka. Qoraaga buug wuxuu leeyahay fanaaniinta markay wax xadayaan waxay isweydiiyaan maxaa ku habboon in la xado. Yacni ma wada xadayaan maaha inaad shaqo qof samaystay magaca ka bedelatid oo wuxuu dhan isku darsatid. Marka aad soo koobiyeyso fikradooyinka muhiimka ah waxaa ka samaynaysaa sheeyo cusub. Sheyga lagaaga horeeyay wuxuu ku noqonayaa dhiirigelin aad ku hormariso aragtidii ama wax cusub aad ka soo saarto. Tusaale aan u soo qaadano Canva programka oo graphic design-ka loo isticmaalo. Mathalan waxaan rabaa inaan logo u samaysto ganacsigayga. Kaliya waxaan sarjiga ku qorayaa logo kadib waxaa ii soo bixi doono logooyin badan oo dad kale ay leeyihiin. Marka uma baahni inaan la imaado warqad eber ah inaan maskaxdayda aan ka sameeyo logadii. Waxaan samayn karaa ganacsiyo horay u jireen logooyinka meesha safan inaan mid aan ka soo qaato aan wax cusub aan ka samaysto. Fikradooyinkaas oo dadka kale ay leeyihiin inaan isku dardarsado aan waxayga ka soo saarto. U fiirso hal qof kaliya kama koobiyeynin. Waxaan ka soo kala qaatay dad badan. Oraahdan uu yiri Gary Panter nin filimada cartoonka sameeya wuxuu leeyahay hal qof kaliya haddii aad ku dayatid tallaabadiisa aad qaadatid dadku waxay ku dhahayaan hebel waa hebelka labaad. Laakiin dad badan haddii tallaabadooda aad qaadatid oo aad wax ka baratid waxoodana aad isticmaashid dadku waxay ku dhahayaan ninkan waa nin asal ah ama wax asal ayuu la imaaday. Qoraaga buuggan wuxuu leeyahay fikrad kastoo cusub waa isku qaska fikrado hore. Aan ku weydiiye meeqa line ayaa kaaga muuqata shaashada. Haddii jawaabtaada ahayd 2 waa qaldan tahay sababtoo ah mid saddexaad ayaa ku jiro oo ka samaysmay labadan xariiqmood. Fikraddan wuxuu ugu yeeraa qoraaga hal lagu daray hal waa 3. Tusaalaha ku habboon ee uu soo qaatay waa familka. Hooyada iyo aabbaha oo isu tegay waxay dhalaan canug oo unique ah oo ka duwan hooyo iyo aabbo. Meesha waxay ku noqonayaan 3 qof oo unique ah. Akhiiran waa la imaatay fikraddaadii wax cusubna waa keentay. Markan waxaa lagaaga baahan yahay inaad geyso meel laga arko ay dadka arkaan maadaama aad keentay fikrad muhiim ah ama wax aad curisay inay kugu koobnaadaan lama rabo. Waxaa laga yaabaa inaad ummadaada ku hormariso ama naftaadaba aad ku hormariso. Meelaha la geeyo sida inaad fasalada aad ka soo bandhigtid ama social media aad soo geliso. Videogan waxaan rabay inaan kugu xasuusiyo inaad noqon karto qof hal abuur leh. Anagoo dhan waxaan jecelnahay inaan la imaano fikrad cusub aan horay laga horeynin. Xasuusno waad yeelan kartaa hal abuur. Meelal badanna ka keenso waxaaga tuug xariif noqo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.